caasimadda Puntland ee Garoowe waxaa ka socda shir ay qabanqaabisay Heritage madasha aragti wadaagga ayaa loogu magac daray shirka oo qorshaysnaa inuu bilowdo 29 bishan ayaa dib u dhac ku yimid balse madaxda halkaasi isugu tagtay oo mucaaradka u badan waxa ay wadeen guluf siyaasadeed iyo sidii talada ay u dhaafin lahaayeen madaxweynaha hadda xukunka jooga ee waqtigu ka sii dhamaanaya maxamed cabdilaahi farmaajo 3 maalmood oo inta badan wafuudda ka qayb galaysa ku sugnaayeen Garoowe waxaa socday kulamo doceedyo booqashooyin gaargaar ah inta badan musharaxiinta ayaa wada isku guurguur joogta ah waxa dhexdooda ka socda kooxaysi waxaana aan soo koobaynaa dhacdooyinka qarsoon ee ka socda Garoowe iyo shirka oo fursad u noqday olo siyaasadeed iyo ololeynta musharaxiin gaar ah shirka dhamaadkiisa waxaa laga soo saarayaa warmurtiyeed aan ahayn kan dhabta ah ee madaxda shirsan ay gaarayaan kadib markii sida ay xoguhu sheegayaan laba musharax ay diideen sida ay wax u socdaan waxaana meesha laga saari doonaa eedda madaxweynaha hadda talada haya 2 xulafada xasan sheekh maxamuud madaxweynihii looga guuleystay doorashadii 2017 ayaa wada ololihii ugu weynaa waxayna mideynayaan kala aragti duwanaansho ka dhaxaysa labada musharax ee guuleed iyo xasan sheekh ama dhinac kale aanu niraahno xertii ku midaysnayd xukunka inay timaado 2012 oo hadda guuleed uu yahay mid ka fallaagoobay kooxda waxay u muuqdaan inay adag tahay inay iswaafaqaan waqti xaadirkan waxayna aad labada musharax u danaynayaan inay sii haystaan taageerada ay ka helayaan madaxda Puntland qaar ka mid ah oo aragtidooda dhanka salafiga iyo xukunkaba ula dhacsanaa guuleed waxa uu isku arkaa in ay tahay maalintiisii oo ay dhistaan bahdiisi simad xasanna waxa uu isku caleemo saaray odayga ugu weyn ee mar kale ay tahay in lagu cimaamado 2020 laakiin labada dhinacba uma muuqdaan kuwa hadda is amaahin kara tanaasulka iyo isdhiska waqtigan 3 musharax ka mid ah kuwa ku shirsan Garoowe waxaan ka soo xiganay in shirka midowga musharaxiinta ee hotelka Afrika kadib ay adag tahay in musharaxiintu ay aragti ku midoobaan waqtigan xasaasiga ah qaarkood ayaaba madasha ay ka caroodeen ka qaybgalkeeda iyo inay tagaan Garoowe si ay shirka un qayb uga noqdaan fahanka la xiriira ololaha socda awgeed 5 shirka waxaa door odayeyn ah ku leh koox isxilqaantay oo ka mira dhalinaysa qabsoomida doorasho heshiis lagu yahay laakiin dhexgalka kooxaha ayaa ka dhigay kuwa marba mawjadu meel ka tuurayso marna aragti gaar ah xambaarsan 6 madaxda dawlad goboleedyada waxa la rumaysan yahay inay heshiis gaareen kaas oo loo badinayo inay fulinayaan heshiis hoos ay ugu gaareen dhinacyadu oo ay ku dan tahay in si siman doorashada looga wada qayb galo mucaarad iyo muxaafid qoorqoorka galmudug oo hadda u muuqda qabanqaabiyaha sida adag ugu howlan heshiis miradhal ah waxa uu ciyaarayaa door odayntinimo oo xoogan isagoo u kala dabqaadaya mucaaradka sii fog iyo madaxda dawladda federaalka ee ku sugan Garoowe 7 xubnaha guddiga doorashooyinka ee waqooyiga ayaa la isku dayayaa aragti ahaan in la mideeyo dibna loo eego wakiilka Somaliland ee Muqdisho sida uu isku haysto Cabdi Xaashiga aqalka sare wuxuu isku dayayaa inuu helo door weyn isagoo wali doonayo inuu isku hayo aragtidiisa gooni goosadka ah ee sirriga u ah iyo tan madasha laga sheego ee midnimada Soomaalida 8 waxaa jira erga ka socota Imaaraadka Carabta Midoobay oo madaxda Puntland kala shaqeynaysa sidii musharax loogu midaysan yahay looga horgeyn lahaa farmaajo loogana gadi lahaa mucaaradka oo dhan tani waa dhacdada xoogan ee madasha kulankeeda ay Puntland u sheegatay inay bixinayso dhaqaalaha ama ay tahay martigeliyaha shirkan 9 wadaadada ictisaamka iyo madaxdii hore ee Puntland qaar ka mid ah gaar ahaan golihii wasiiradu waxa ay laba musharax oo isku haystaan kay taageeri lahaayeen daahir maxamuud geelle iyo cabdikariin xuseen guuleed waxayna aragtidooda salafiga ah kooxda ictisaamku la dhacsan tahay geelihii mar Sacuudiga ka noqday safiirka marna ahaa wasiirka warfaafinta ee Soomaaliya xukuumaddii ka horeysay midda injineer Xuseen Maxamed Rooble ee hadda dhisan badi shacabka Puntland ayaa shirkan u arkaa madal aysan aragti ku lahayn
lagu dul khudbaynaya soo dhowayntana ay sacabiyin ka yihiin waddooyin loo xiray ulana kulmayaan dhinacyo kala danaysi xooggan dhexdooda uu ka taagan yahay oo ay dareemayaan culays iyo jidadka la xiray dhinaca kale hoteelada waaweyn ayaa dhaqaale badan ka samaynaya waana fursad wanaagsan marka laga eego xagga dhaqaalaha